يعني xeer ilaaliyaha qaranka garsoorayaasha iyo madaxda kala duwan ee ka socota laamaha dawladda inta kadib ciwaanka waxa weeye sida la sheegay argagixisada si guud iyo Soomaaliya markaan ka hadlayno marka waxaan isla arkaynaa qeexidda argagixisada waxaan ka tilmaameynaa sooyaalka argagixisada adduunka iyo sababaha keenay qadaayaadkan marka arrimaha waxa weeye inta badan ku qoran cilmi baaris badan laga sameeyay oo dad badan wax ka qoreen sooyaalka argagixisada ee Soomaaliya iyo sababaha keenay kaas waxa laga yaabaa inuu saameyn gaar ah yeesho qaab dhismeedka ururka al-shabaab iyo daacish qaab dhismeedka ama maleeshiyaadka waxaan ula jeednaa يعني waa ciidanku ay adeegsadaan way maadaama si sharci aan loo adeegsan karin ciidan ay u dhisan yihiin halka ay sartu ka qorantay oo qadaayaadka waxaan ay ku fadhiyaan iyo qaababka ee looga hortagi karo iyo tubaha loo mari karo tala soo jeedinta saddex lifaaq marka cilmi baarista inteeda ugu badan waa ay taalaa oo waa haystaan buugii waxaan isla eegaynaa iftiiminta koowaad oo ah argagixisadu waxay Soomaaliya ay ku soo jirtay muddo dheer waxaana sabab u ah burburkii dawladdii dhexe iyo awooddii dawladnimo ee firaaqi ka dhacay waddanka 1991 kooxaha argagixisadu waxa ay ka faa'iideysteen xaaladaha nabadgelyo darrada ka jirtay dalka ka dhacday iyo firaaqi ayay wadalka yimaadeen taas marka qof kasta waa og yahay macni waa madkhal waa qaacida oo qof kasta garan karo argagixisada Soomaaliyana waxa buddig u ah hadii si taariikhi oo cilmi loo eego waa itixaadka intii ka dhalatay way hadii si meel dhow laga bilaabo lama fahmi karayo laakiin marka loo eego taariikhda Soomaaliya itixaadku si u dhaqmayeen fiqigooda dagaaladii fatwoolayeen mabaadi'da tawaabida ilaa iyagii si kala jajabeen ilaa in ku wajira meesha ka cabayaan oo manhajka oo isku hal mid way laakiin iyaga waxa ku dhacay tadawur oo qola ka tanaasuleysa marka qoladii meesha kaga yimaadeen bay marka nacladayaan laakiin manhajki sidiisi way waxa kale is weydiin mudan marka asal ahaan waa maxay marka sababaha keenay in argagixisadu ay ku xoogsato Soomaaliya yaasi hogaamiya kooxaha argagixisada ee Soomaaliya dhaqaalahan fikrahan siyaasadahan manhajahan dhamaan waxa ka jawaabaya waa baxsiga ka jawaabay su'aalahan Soomaaliya ma jiraan xiriiro ay la leeyihiin kooxaha kale ee caalamiga iyana waa su'aal kale sidee kooxahan u helaan dhaqaalaha ay ku maalgeliyaan howlgalladooda dagaaladooda afkaarahooda qaabkee way waa maxay aragtida iyo qiimaha ay ku salayaan falalkooda waa maxay saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaaliyeed ama gobolka marka su'aalaha inta badan waxa akhriyaysan baxsiga akhriyaysan oo aad haysataan waxa kale is weydiinaynaa su'aasha kale ayaan rabaa inay madkhal noqoto ama maanfur noqoto dadku waxa dalka ka furan boqolaal jaamacadood dalka furan macaahid iskuulo xarumo kutub la akhrinaya natiijada soo bixisana waxaan garan karnaa inay dadku dhibanayeen bis yani jaamacada waa laga soo baxaya diinta waa la bararaya iskuuladu way furan yihiin macaahidda fikradu way jiraan laakiin su'aasha waxa weeye maxaa la dhigtaa sidee loo dhigtaa yaa dhiga inta la isma weydiinay laakiin waxa kaliya la og yahay
in natiijada soo baxda dhibban loo yahay marka haddii la rabo waxa kan marka in qaab istiraatiiji oo nidaamsan marka waa in su'aashaas oo kale noqon kartaa madkhal bay noqon kartaa hordhacan waa ka gudbaya Soomaaliya taariikhdeeda iyo diinta islaamka waxay leedahay taariikh wanaagsan oo suuban xilliga islaamku soo gaaray duruq suufiya qaybahoodii kala duwanaa qaabkii xalaqaadka iyo diintu u soo barbaartay inaha waxbaan ka tilmaanay mushkiladdu marka waxa weeye gacanka hadalka shariicada islaamka markii isu bedeshay dadkii ka shaqeynaya ducaadaha markii burburkii dhacay xarakaadkan musallaxa oo Soomaaliya ka bilowdeen oo la yiraahdo as-saxwa dadka qaar asaasi cilmi barasho quraan laakiin saxwadu maxay ahayd waxay ahayd saxwa askariya military diimeed bahayd moogtay military diimeedka waxay ka dhashay marka mashaakil badan baa ka yimi manhaj fara badan baa dadka soo galay afkaar badan bay isbedelay waxaan kaloo tilmaameynaa marka inaha marka ka gudbo waxaan u gudbayaa ereygan argixisho af Soomaaliga xigay kaga jira waxa laga yaabaa qofku markuu maanta baaray irhaab inuu qawaamiista carabiga ama Oxford maxay tiri inaga afkeena xigay kaga jira bulshada Soomaaliyeed maxay argix u taqaanaa ama ereyga maxaa ku gadaaman oo ka dhala kala afkaar iyo ereyada la mid ah ereyga marka aragto waxa imanaya sida qaamuusku sheegayo cabsi waa kaleesa argagax waa imanaya caga jugleyn baa ku jirta hanjabaad baa kamida cabsi gelin baa kamida goodi baa kamida baqdin baa ka dhalaleysa collaytan nacayb aarsi xasilooni daro qaracan muraara dilaac qalbi jab niyad jab rajo xumo naxdin rajabeel war ku taalo walwal walbahaan walaac dhammaan ereyadani macnii waa ereyada seeraha ereyga argagax ku jira qaamuuska marka qofka reer baadiyaha laga hadlayo qaamuuskan ka hadlaya waa qofka Soomaaliga oo dhaqanka afka soo yaqaan inta loo erey hal macne isugu imanaya marka meesha in mashkalad taalo waa dareemaysaa marka qofkii uu dhibsanayo waxaan kaloo iyana sheegaynaa wax yar taabanaya sooyaalka argixisada Soomaaliya khulaasay baan in tusaya oo soo koobaysa waxyaalaha sababay in argixisada Soomaaliya ay xoogsato waxa kamid ah kow colaadaha sokeeye oo dalku raagay waxa kamid ah loolanka khilaafka siyaasadeed oo markasta siinaya jaanis jidba kooxeed iyo dagaal argixiso oo culumo waxa kan iyo dukumeenti fara badan oo duuban ajilo aan la tirtiri karin dalka yaalin waxa kamid ah caamo culumoodi iyo aqoon lixsan fashil iyo laciifnimo hogaamineed dhaqan guur bulsho dadka qaar baa dhaqanka iyo taariikhda iyo hidaha iyo afkay ka tagay qofka marka haybtiisu lunto marka wax kasta waa lagu shuba karaa waxa kaloo kamid ah hoos u dhac dhaqaale fakhriga iyo saboolnimada iyo baahida iyo gaajada way keenaysaa qofka in laga faa'iideysto burburka waxbarasho manaahijta faraha badan oo dalka soo gashay tusaale yar daan sameeyno ilmi Soomaali wax baranayay oo loo dhigay heesi ay ku jirtay dhulka miro ku beero muujiye wanaag wuxuu diyaarsanaa markii heesta loo dhigo inuu cambe iyo beerto muus iyo liin macaan laakiin hadii burburkii loogu bedelay dukiya jibaal iyo sanaqoodu macaarikana iyo dhammaan qofkii wasqarxinaya waxa jira Soomaa waayo waxbarashadu waxa la yiraahdaa waa manhajka hagaya qofka waxbarashadu waxay sahmisaa qofku wuxuu noqonayo cadaalad darada iyo tabaryarida garsoor markaan leenahay mid dawladeed kaliya ma xitaa qabaa'ilku garsoor beleeyeen qabaa'ilka dhexdooda xitaa hadii cadaalad darro ka jirto waa laga faa'iideysanaya waxa kaloo kamid ah maleeshiyaad askaroobay askarta xitaa dawladda qaranka oo ciidanka ama xoogga ama ciidanka qalabka sida haduusan si cilmiyeysan u soo bixin oo maleeshiyaadkii ay isu bedelaaneen moogtay generaalo ideolojiyad iyo aragti ay dalka ku ilaashaan ma keeni karaan iyana waa arrin jirta way
taliska dabacsan iyo tabaryarada iskhilaafsan way keenaysaa oo awoodda ciidanka wax loo yaqaano caqiidada ama wax la dhaho caqiida askariya jaanis bay siinaysaa haddaan soo koobno intaas warka waa ururinayaa warqad yar baalka laysoo agdhigay nimankan qaab dhismoodkooda iyo ciidankooda iyo warqadda ka akhrisanaysaan waxaan rabaa halkan inaan ku istaago 4 qodob sawir ahaan baa idin tusaya marka koowaad waa intan argixisada Soomaaliya 3 qodob ayaa asal u ah midkan koowaad waxa weeye fikirka maxaa laga wadaa fikirka waxa laga wadaa qofkan haybtiisu noocee tahay wuxuu aaminsan yahay taariikhdiisa hidihiisa jiritaankiisa kutubta loo akhrinayo qofka yaa qaabaynaya qodobka labaad waxa weeye waa fiqiga al-mihwar al-fiqhi waxa ognahay 90 kood wixii ka dambeeyay wadaadada Soomaaliya waxay la dagaalameen gaar ahaan nimankan salafiyada waxay la dagaalameen fiqiga shaafiiciyada dadka waxay akhrinayaan kutub yar caqiidooyin iyo rasaal yar hal kitaab oo fiqiga ma ay akhrin aniga takhasuskii fiqi way haddii ku doodayaan dhahan fiqi baan akhrinay koonfurta waa laga yaabaa nimankan timo yarta iyo culimada ahlu sunna way akhriyaan fiqiga laakiin fiqiga la dagaalamay mashkilad ba ka timi fiqi al-hanabila dalka la keenay mashaakil badan baa dhacay marka qodobka saddexaad waxa weeye erey bixinta iyo jaangoynteeda yaa mashkiladda saddexaad qofkan erey magac waa loo bixinayaa firqa naajiya qola isu bixisay adiga murtad buu ku yaqaan adiga wuxuu ku yaqaanaa mushrik dawlad maxaa la dhahaa dastuur maxaa la dhahaa doorasho maxaa la dhahaa dimuqraadiyad maxaa laga wadaa dhammaan ereyadani waxay u baahan yihiin xakameyn iyaguna inaga marka 3 qodob ee ugu weyn tusaalayaal waan ka bixinaynaa marka kan koowaad dib ugu noqon marka mihwarul fikri markaan ka hadlayno waxa weeye bid qablaanta fikirku waxay keeni kartaa halaag iyo hurgumo aan laga soo kaba karin tusaale waxa kamid ah al-muwaadana fi al-fikr al-islami islaamku soo arka wadanka iyo dawladnimada iyo soo arka الفكر المتطرف قضايا الإرهاب سيلو ورتجيا مسائل الإلهيات بين أهل السنة والمخالفين قاف وهذا وحلا سكوا يستعمل مسائل عقيدة الحريرة مسائل الحريرة آخرة ذاكله جد كسرات ما أنت قيام إلهي من الأركيا قفك جنة ملوها يعني مثل نار ملوها يعني مسائل كان إلهيات كي أخروجة وكتب عقيدة ذا أيها أصل وأنت اللي سلفهم وايل وكلا بحي waayo culimada Soomaaliyeed qaar bay isu yaqaaneen in ahlu khayriin inta kale waxay yaqaaneen mushrikiin bay isu yaqaaneen waxaan oo dhan marka waa in la daweeyo xagga fikirka islaamka ka soo kamida warbaahinta la soo adeegsanay 1 milyan ka badan oo cajila ayaa ku jira YouTube-ka iyo mareegaha oo dhamaantood in la islaayo in la isqarxiyo in jihaad jiro kulli ay ku duuban tahay marka dawladda Soomaaliya ma qorsheey kartaa inay ka saarto waxan qofku helaya hadda fatwo uu ku dilo marka waxa kale qodobka labaad waxa weeye al-mihwar al-fiqhi way fahan qalloocday oo ka jira dhanka fiqiga ayaa sabab weyn u ah dhibaatada iyo guriga ka taagan haddii marka mudnaanta koowaad la siiyo dhanka fiqiga islaamka tusaalahan halka waxaan ku soo qaacideynaynaa siyaasiga aragtiyaha siyaasadda u janjeera liberalismka iyo waxa loo yaqaan cilmaaniyadda dawladda dimuqraadi erayga noocaas oo aaminsan yahay ninka siyaasiga laakiin war badan kama hayo shareecadana yaa waardiye ka wadaad ka aradan nuxurka shareecada labada natiijadii ka dhalatay ba dhibban u nahay marka faham maqaasid shariica islaamiya si loo fahmiya qadaaya fiqiya dawaabid al-fatwa wal-iftaa ya fatwalaya waxa jira masaa'il xitaa ku jiray fiqiga oo caqiidada loo raray si loo fadwado waxa kamid ah daacatul amiir ama daacatul malik iyo kutubta siyaasadda lagu bartaa fiqiga laakiin wadaadada salafiyada caqiidada ku qorteen si iyaga loo adeeco caqiidada saxda saas waxa kaloo kamid ah kutubta fiqiga qadaayad ku jira al-walaa wal-baraa waxa lagu bartaa fiqh siyaasi hadda akhridid maawardi abu ya'la kutubtiisa al-walaa wal-baraa waa diblomaasiyad way يا هشيس للجريا لما وح وررين كتبت عقيدة شو مرنا حريقة كوجرو مرنا وكوسو دوي
waxaa kaloo ka mid ah qadaaya alhijra mafhuumuha wa xaqiiqatuha qofku ma laga yaabaa muqdisho inuu daan ka hijroodo daanta kale u hijroodo isagoo ereygan hijro ku wareersan see loo fasiraya marka mafhuum alxaakima alxaakimiya fi shariica الجهاد في سبيل الله حقيقته وضوابطه وحده وفقه وراري وي التقعيد الفقهي ما كم ذا مشاكل كاسود أنا مركب قضب كصدحان وصوماليا مسألة الفقه مسألة خطر وي معاك الله كم ذا قضب كلا مصطلحات كانوا تجينا دولة سيلو فسرية مفهوم الراية كم ذا علنك تسطور كم ذا qofku waxa laga yaabaa inuu yiraahdo dalka dastuur baa lagu xukumaa laakiin uusan dastuurka akhriin isna dastuurka Soomaaliya uu ka jira baadiyaha marka tagto reer kasta xoolahoodu waxay leeyihiin sumad mid baa fallayr leh mid baa dacal leh mid baa gooba leh mid baa xariiq leh reer wax ka khalday ma jiraan reer kasta eelka maalin bay ka cabaan gabdhaha marka la isu guursado aroosyada yarad baa la siiyaa gashiga la kala qaataa magta lagu heshiiyaa daaqa heshiis lagu yahay baadida la isu ceshaa reer kasta soo degan yihiin qabiiladu isku khaldamaan waa dastuur nololeed intaasna waa arrin caadi ah intii marka loo soo raray dawladnimada oo la yiri madaxweynuhu kanu magacaabi karaa xeeralinta sharciyadu waa intan degmada gobolku intaas maamulaysa boolisku shaqadan u qabanaya maxaa ku jaban xagee diinta kaga hortay marka waa in dadka loo sharxo marka ee aan dastuurkii la waardeyn dadka la fahansiiyo qodob kale wax ka mid ah مفهوم الراية علنك قفوي بالغ يابا انه علنك الدين بوركو شريعه علنك الاسلام علنك سي لوغا هادلay horta anigu arkay inoo culimo waxay iyadoo calan loo istaagay aan istaag way waasigtay waxaani marka waa maxay ma taqdiirkan wax intee leeg way calanku wax weyn ma yahay mise wax weyn ma horta qiimihiisu muxuu yahay curfi miya istaagiisu ma cibaada sharx u baahantay خلافة هي سياسة سيولوجية وذات كل الدنيا خلافة لكن مو خلافة إن السياسة هاي سياسة وحربا سياسة وحكعرية خلافة لكن مو غير خلافة سياسة هاي مركا أنا بحث استغير الزوما لا بدك يعني كنت أرسل يا شيخ يا مفهوم القوانين ما كم إذا مفهوم القوانين قوانين تروح حتى تصير في سرية حيرك قوانين سيلو فسرية حدي هذا اللي يراهدو جهين تدك حيرك اسكول هذا اللي قاليه جامعة كل حيرك بليه قفك حيرك نورش وقررية لكن حيرك مركو الدولة وقالوه أيو دم بالنقلية مشكلته بحياتها مرك تغنين كميدا فقيقة يو قواعد مفهوم كواحد كم الانتخاباتك دينتي أنا الصوبنا داني ابنه صحابتي خلافتي لما أنتوا واستوريين علي بالا دورتي عثمان عمر دورش على وجري محامر كأنك انتخاباتك إنه كدر يمرك ولا ددن محي انتخاباتك وفهم إليهن سو أركان والله يرى دورش محل لقى وضع ملي تشريع ما كم إذا سيلو فهميه ديمقراطية روح حد محل ولا جدا كان ديمقراطية وضع وإنه شيء محل ولا جدا ديمقراطية وحا ولا جدا دتكو إلى استورتان أو إسفهمان أو وحكا حيان يوجد المحاكم الإسلامية سيلو فسيرية مركا مسكلة ده ربحين تو وحوين بينه كويسة واحد بدن بين إنك في هذه وحدي فقه تاي إيه حدي تاي حاجة فهم كدولة نمدا إنك علماء إنك هيست أريتها مركا مشكلة وين عياجرتها أريتها ربحينتا وأهل ولايس كذا وفقه كسي درماي مركا وفرصات حقوق أبوكون مركا وحن كلا وجود بينه talooyinka saddex qodob ugu muhiimsan argixisada Soomaaliya ka jirta waa military waa ciidan lambar 1 waxa ah in horta awood ciidan loo adeegsado hadda waa aragteen dagaalada ka socda maamulka Puntland marka quwa askariya waa laga maarmaan
dowladdu in istiraatiijiyad leedahay awood ciidan waa qodobka labaad waxa weeye dhaqan celinta iyo fulinta sharciga iyo la dagaalanka argagixisada oo dhaqan gelinta way sharciga xeerarka argagixisada in lagu sameeyo tafciil oo argagixisinimadu ay dambi noqoto aan kaliya la isku xukumin qofku dambi gacanta ku hayay in arrinta la fuliyo qodob kale waxa weeye al-amn al-fikri oo loola jeedo bidqabka fikirka qofkan fikirkiisu seeyay yaa barbaarinaya manhajka loo dhigayo iskuulku dhigalayo jaamacada maxaa lagu dhigaya waxyaalaha cajiibka waxa kamid ah nin baa la sheekaystay dhawaan wuxuu dhigalayaa master shariica oo dowladdu bixisay waxaa maraya kullu dowladda lacagta ka bixinaya marka waxaa loogu talagalay ducaad in la soo saaro qudaad dhowr boqol way ardadii waa la diyaarshay yaa dhigaya marka dowladda dariska Masar oo kale iyo Suudaan tanada burburto kale Morocco iyo wadamada dhexdhexaadka hatta culimo laga dalba lahaa dadku isbedel lahayn mashruucu afka waa ka macaan yahay laakiin nafs shay 2017 kii manhajkii la dhigaya arday shariica dhigalaya ka waran wuxuu sitaa kitaab ku qoran tahay al-firaq ad-dalla ugu qoran ashaacira oo horeysa dadka Soomaaliyeed waa ashaaciro marka Soomaaliyeed waa firqa dalla marka mushkilad weey marka al-amn al-fikri marka waa maxay waa qofka oo lagu ilaaliyo bidqabka seeraha taariikhda fikirka hidaha diintiisa waxa soo dhan qofka lagu ilaaliyo amn al-fikri la yiraahdo hadii amn al-fikriga aan si kale u tusaaleyno qofka muqdisho jooga oo kaaraan degan haduu aamino biisadu inay ka fadli badan tahay muufada qofka khatar buu ku jiraa laakiin waa inuu aaminsan yahay in muufadu ka sareyso biisada ka sareysa amn al-fikri marka wax balaaran way moogtay waxyaalaha cajiibka waxa kamid ah fanka soo galaya hadda ayaan oo ciyaal ma imtixaan u saxay waxa ugu qornaayeen waxa ka sheegtaa geela faa'iidadiisa marka manhajka wax lagu baray ardayga niman thaqaafa badawiya diyaarshay reer geel jira diyaarshay manhajka waxay qoreen maktal geela la iska bixishaa gabdhaha laga la baxaa geela waa lagu faana waxa ku qoran buuga waa ka wariyay buuga markaan jawaabti kood wuxuu ka bilaabay macasarta lagu shiitaa ardaygu markuu u saxay macallinta aan ku yiri ardada reer magaal weeye geela faa'iidada iyagu arkaan ugu sax ardaygaas ma saxsana marka sababta macalinka manhajka diyaariyay isagu wuxuu garanayay gabar in laga bixisho in lagu safro aqliyadii wuxuu ku fakarayay baadiyaha marka amnu fikirku waxa weeye waa wax weyn way tusaale kale amnu fikirku waxa soo galaya luqadda inaga culumadeena hore luqadda carabiga way bari jireen naxwaha iyo balaaqada iyo edebka waliba culumta loo yaqaan balaaqada mashkilad weyn bayna ku haysaa hadda waxa laga yaabaa xadiiska inta badan ee culimadan daliishadaan oo sida qaldan bay u daliishadaan xadiisku waxa ma qabo umirtu an uqatila an-nas an uqatila way ku fasirayaan an aqtula an-nas waxa lay amray dadka inaan laayo saxna ma المقاتلة أقتله بس كي غلطان مرة واحد إحساس واحد يقول لي شيخ وفسر يا قصيده وحليه هاي والشرك وحليه كنت يا عبد القادر كعبة الأولياء عبد القادر وحنقطة كعبة أولياء شرك بقوليه لكن ما فهم سلا مع البلاغان بحنا نقول عبد القادر فولات كعلوم ذاتي فولات كعلوم ذو نقكرة ما نقكر ولا قد ودي كرا لكن شرك مش ميال صوص اسمع marka luqada way hadii aan tusaale kale ku soo gabagabeeyo amnul fikri waxa kamid ah waxa jirta hees Soomaalidu garanayso heestan eelbuur soo garamaysan dhamaantii waxa ku jira beyd culimo badan ay yiraahdeen waa dambi wuxuu leeyahay quraanka cadeeyo aynkeedo kale la cadaabi ma yakune waa dambi wadaadoo dheen maxaa dhacay te quraanku ma cadeyn gabadan
marka balaaqada ku jirta marka waa maxay caynkeedo kale ma fahmay inay tahay tashbiih quraanka duu cadeeyay gabdha saalixaad oo muuminaad oo qaanitaata maxaa ku jaban iyadu meesha noqon karin soo balaaqa uma baahna balaaq amnu fikirku marka eeg xitaa luqada inuu galo waxa kaloo ka mid ah heestan hadraawi oo dad dhalinyaro inay yaqaaniin wadaadada dambi ku sheegan waxa ka mid ah ee leedahay hadaan lay cadaabayn rabbi caroorayn he cadaankii madowga he soomay dadku inuu ku caabo soomay waxa dhan wadaadada waa dambi see dambi u tahay marka ereyga hadaan lay cadaabayn marka la baro cilmiga macaaniga balaaqada maxay noqonaysaa imaam al-Shafi'i muxuu yiri lawla khashyatullahi alayhi soomay gabay hadaan lay cadaabayn ba isaga abwaankii qirayaba saasan dhehila laakiin ma oranayo way macnaheedu marka meesha balaaqa ku jirta gabadha marka saddexdan lifaaq waan tusaya waa ka digaya waxa weeye lifaaqa koowaad qaabka fikirkan u sameeyay waa aragti waa nidaam waa diyaar garow waa qorshayn waa fulin inagu fulinteenu joognaa marka wala inuu ku fuliyo Soomaa intaasba waxa laga rabaa dawladdu markay aragti mareyso in la dagaalanto markuu tandiimka yahay in la aqla saaro diyaar garowgiisa in la socdo qorshayntiisa tanfiidka in lagu baro hadda maamulka Puntland maxay ogaadeen intaas oo guuto ajnabi markii meesha joogan soo moogaan Soomaali dhib mushkilad haysta jantus la ku xaga weeye tubaha ee adeegsadaan qaraxyo tashkiilin iyo aga jugreey qofka lagu shaqaaleysiyaa sahmin iyo gaadmo jahwareerin iyo janjaamin iclaamka waad aragtay qaabka u adeegsadaan adeegsiga warbaahinta uskashada fatwo diimeed mushkilada fatwadu mushkilad khatar waay adduunka fatwadu saddex qodob bay leedahay waxa ama afar bay dhahan culimadu usul fiqiga urfiga iyo makaanka iyo sabaanka iyo caadaadka iyo bulshada dhaqankeeda marka bulsho taariikhdeeda iyo fankeeda iyo nolosheeda iyo jiritaankeeda iyo madhabkeeda aadan rabin fatwada ugu tala gashay nooc noqonaysa marka fatwa aan iga quusayn way marka qodob kale waxa weeye lifaaqa saddexaad qaabka looga hortagi karo waxa weeye waa awood ama cudud ciidan adkeynta xuduudaha xakameynta ilaha dhaqaale dhaqangelinta xeerka argixisada wacyigelinta bulshada wacyigelinta marka yaa sameynaya warfaafinta waxbarashada goobaha waxbarashada jaamacadaha waalidka masaajidka waxa soo dhamaan la shaqadooda inay ku noqdaan iskaashiga dawladda deriska iyo wadaagga xogta yana dadka amniga bartay tan way fahmi karaan waa soo dhow sax waraadi baan haysan ya canaawinta qaar waxa laga yaabaa inay xasaas ka noqdaan waxa laga sheekaynayaa wax iska culus weeye qaarkood in meesha fadhiya way dhici kartaa raali baa haysan ya aad baa mahadsan tahay ustaad maxamuud cali aadan oo inoo soo jeediyay mawduuca